السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواada dhamaantiin meel walba joogtiin haddii ay tahay markii ugu horeysa aad soo booqato fadlan subscribe halkan sidoo kale waxaa booqan kartaa barteen Telegram Somali Online Opportunities maadaama halkaas kusoo gudbina waxyaabaha headline-ka iyo degdega mise setup-ka iyo trade-ka markaas ku saabsan qoraal ahaan in halkaas soo gelino iyo macluumaad badan oo waxaa la yiraahdaa forex-ka la xiriira halkan sidoo kale aan mar walba kusoo bandhigno muuqaal iyo maxaa la yiraahdaa cashir wuxuun ka bedelaya trading-kaada mise ay sheegaan faa'iido ah marka haddii aynu maanta isla fiirno maanta ay tahay jimco tareedadii isbuucan aan soo qaadanay qaar kamid ah iyo waxyaabay muhiimka ay ku ahaayeen in looga hadlo iyo sidoo kale meelaha trade-ka mar walba ka fadhiisid mooyaane meel kale suuqu iska bedeli karo ay qasabna tahay inaad la socoto xaaladda markaas suuqu uu sameynayo iyo waxyaabaha uu isku bedelayo adoo waxaa la yiraahdaa suuqa ay sheeg falanqeynaya aba dhinacuu jiro u raacaya maxaa la yiraahdaa ii sheeg muhiimaduna waa inaad shaashada mar walba maxaa la yiraahdaa saaxiib la noqotid aad suuqa falanqeysaa si markaas trade-ka dhow iyo trade-ka fogba aad u arki karto haddii ay laakiinse shaashadu aad saaxiib la ahayn oo ku adkaanaysaa inaad mar walba trade heshid mar walba trade dhistid so maanta waxaan arki doonaa isbuucan waxaanu sameynay forecasting so ayadoo video waxay ku jirtaa bartaan waa arki kartiin last week aan soo gelinay so qayb kamid ah trade-yadaas ayaa sidii la rabay u shaqeeyay qaarkoodna meeshii la rabay mooyaane meel ka horeysa ayay iska diyaariyeen marka waxaan arkaynaa tusaale oo kale DXY last week waxaa idin sheegay inay aan halkan dhown tareenkan hoose aan ka sugi doono fursadeena laakiinse sidii ma dhacday waamay sidii ma dhicin suuq ma imaanin barti aan ka sugeynay oo waqti ay qaadatay laakiin maxaa arki kartaa in suuqu sidiisa ka duwan u sameeyay oo halkan maxaa la yiraahdaa trend yar oo kale uu kaaga bilaabay oo down trend ah so trendigaas hoostaas uu kaaga bilaabo sidaas u socda ayaa waxay qasbi doontaa in lagu tago bartaadii ama halkan ha ka soo daato mise halkan ha tago mid ka yarabo ha noqdo laakiin ugu dambeyn wuxuu tagi doonaa insha Allah bartaan sababta aan saas ku leeyahay wax kale ma ahan waxa ujeedaa suuq mar walba uu imaanayo laba mid un buu ku imaada ama dhaqaaq xooliyo toos oo saas ugu imaanin mise wuxuu ku imaanin trend yar oo meeshii ayr loo socona ayr loo wax saas ku imaanaya oo waxaan ujeedaa waa midaan hadda suuqu uu ku socdo ayaana inay tahay ujeedin hadeertaan oo trade-keenan uu isku dhisayo soo marka sidaan oo kale uu sameeyo dadkan day trader-ka dan ayaa ugu jirta oo suuqa maalin walba bibis ka raadinaya sababtoo markuu move-kan sameeyo move-kan waa la sameynaysaa markuu intaan sameeyo waa la sameynaysaa intaan markuu sameeyo waa la sameynaysaa dan badan ayaa noogu jirto trade badan ayaanu ku helnay last week oo faa'iidadooda wata haddii aynu isla fiirino mise shaashada aan isla wada eegno wax walba waxay ku qurxoon yihiin cadeyntooda ay muuqato waxaan arki karnaa USD oo kale last week waxaanu helnay sheeg hal trade horta ugu fiicnaa trade kalena wuxuu ahaa trade oo sheeg waxaa la yiraahdaa sii socosho laakiin waxaa ka muhiimsanaa trade-kaana ka muhiimsanaa oo 60 something pips bixiyay laakiin halkaana asagana maalinkii talaadada oo kale trade uu ku jiray oo kandalkan oo kale ahaa asaga laftigiisa ma xumeyn meelahan eedaa halkaan ahayd markii meeshaan oo saliim halkaan ahayd waxaan ka helnay ilaa 40 kaas bib ayaa faa'iidaha ku jirtay inkastoo meelahan noogu xiraana oo noogu soo noqday kandaladan kale noogu imaadeen oo soo korkaas aan sugayno soo tiginin soo laakiin 25 bib meelahaas aan ugu harnay soo trade-kan oo kale xitaa marka fiirisid waa trade aad muhiim ah 65 bib ahayd lacag fiican weeye marka waxa ujeedaa suuqu halkan yimid horay kamaana gelinin oo waxaanu sugnay waxa la yiraahdo ay sheeg kandaladan meesha yimid inay suuqa kor uga kacaan ay kor aadaan oo kii u dambeeyo oo kale la jabiyo waxa ujeedaan kan ayuu ahaa kii u hooseeyay soo kanna wuu ka dulmaray oo kan ayuu jabiyay soo horay marka maalinkaas kamaana gelin sababtoo habeenka xilli dambe nagu gaarto suuqa ayaa nagu xirmay soo habeenka meelahan markuu yimid waa iska sugay kandalkan kii wuxuu ahaa 5 saac kii 6 saac buu ahaa kan kii 5 saac kii 6 saac halkan ka bilowday kana waa kii 5 saac kana waa kii 4 saac kana waa kii 3 saac
marka 2 saac meelahaas ahayd soo ma geli kartid suuqa marka xiliyadaas oo kale gaaro waa iska daynay soo subaxdii ayaanu sugnay laakiin tradeku diyaar ayuu inoo ahaa soo handala subaxdii kan ayaa u jeedin baygan inuu kacay labadan seelka ku soo xigsoomay oo zoonkaadi ayaa la soo tagstay gareey kadibna zoonkaadi markaa aragtay in la soo tagstay gareey waxaad u jeedaa kan bayga ayaa dhaqaaqay baygan markuu dhaqaaqay oo xirmay baygiisa labaad ayaan trade ka galnay oo halkaan ahayd stop loss kan waxaanu dhignay kan hoostiisa afkii hoosay halkaan ayaanu dhignay sidii marka si lamid ah maanta hadda ay tahay jimco galabta xilligan adfeef waxaan sugaynaa inaan 35 biibna ilaa inta caawa 2 saac la gaarin oo inoo dhameystiro suuq sababtoo intaan in lamid ayuu sameeyay waxa u jeedin suuq markuu korkaan tagay oo soo noqday hoostii ayuu yimid kadibna hoostii u dambeysay oo maxaa la yiraahdaa ay sheeg correctionka lagu yimid mise trending yarka ahaa iska dheh waxa jeeda in asagina candle buy uu jibiyay oo gidaarkana la jibiyay midkaana la jibiyay kadibna marka intaas aragtay waxa u jeeda in suuq zoonkaadi la yimid zoonkii markii la yimid 15 minutes iyo 30 hadaa tagtid waa kana 15 kan joogna 15 ka candlekii xaqiijiyay candle ku xiga buy ma noqdaa okay buy markuu noqday oo xirmay halkiisan kan ku xiga ayaanu ka galnay soo asagana waa meeshii aan rabnayn in loo tago oo zoonka ahayd waxaan sugaynaa hadda u fiirsina mar hore ay suuq soo tistigaray oo halkaan oo kale la sineed marka hoos ayaa xeer ugu soo degi kartaa si ay isku suuq markuu afka hore la sinto kale oo soo noqoshada koowaadba oo soo kula tarax tigno tooska oo soo noqonaa bartaas oo kaaga saaro soo asagana hadda trade-kaas ayaa ka macquul laakiin trade-kan waa trade xilliga aad video soo galnaa ku dhaafaa laga yaabaa waana trade keena riski macquulsan oo riskigiisu iska inta macquul yahay sababtoo meeshan inta baa la soo jibin karaa laakiin waa trade riskiisa dhameystiray oo wax walba ay macquul ku yihiin soo trade-yadan oo kale kan oo kale iyo kan oo kaleba waxay ayaan laba trade asbuuc ka helnay oo micnaheedu waxaan kula wadaagayaa wax kale maahan waa inaad shaashada aad akhrin kartaa si ii sheeg aad trade badan oo kale u heshid sidoo kale maanta waxaan xirmay asaga TB inoogu dhacay AUDUSD shala maxaa la yiraahdaa gelinkii dambe oo kale ayaynu halkaan ka galnay meeshaan ayaanu ka galnay halkaan ayaanu ka galnay waa kana zoonkeeni ayaa la tegay kadibna candlekii tegay meeyana kii ku soo xigay oo seelka ahaa oo halkaan ku xigmay oo doojina u eg ayaanu aragnay kadib markaa oo intaas dhacay waxaan u sugnay oo kale isla asagii ma la soo jabiyay soo waxa u jeedeen candleka oo ka soo yara hoos maray buldhiciisii hoostiisii soo markuu halkaan ka soo hoos maray waxaynu ka galnay bartaan ayaanu ka galnay soo TB-geena uu ku dhacay oo xunisay 40 bib waa trade kale aad muhiim u ah sidoo kale lacagtan GBP card ayaa kamid ah lacagii aan shalo kale aan ka faa'iideysanay idan waxa u jeedin halkaan waxa gidaar aad loogu soo noqnoqday in suuq ka dhex baxay oo la jibiyay kadibna suuq uu asagii gidaarkiina ugu soo noqday maxaa la yiraahdaa markuu gidaarkii inoo yimidna candlekii u dambeeyay oo seelka ahaa candle ku xiga buyga ayaanu sugnay inuu 1 hourkiisa mise 15 minutekiisa oo kale oo inoo xirmay kadib markuu 15 minutekiisa iyo ilaa 30kiisa iyo 1 hourkiisa inoo xirmay waxaanu galnay kiisa ku xiga ayaanu ka galnay waxaan asagana u jeedaa 50 bib ayaanu ka helnay 49 bib meelaas anagoo risk gareenaynay ii sheeg 22 bib oo stop loss keenano ahaa Soomaaliya ku xigay next day trade ma lahayn sababtoo meeshaan maalinkii hore ka gashay mar labaad kama geli kartid ilaa trend sax ah oo kala arkin soo markuu suuq uu aragn inuu ku soo noqday waxaan online handale in halkan oo suuq jibiyo kadib uu noqdo oo toos u soo jibiyo kiisa labaad ayanu ka qaadan doonaa insha Allah next week inuu sidaas noqdo ayaan rajeynaynaa fursad kale ka helno soo mar walba suuq aad falanqaysidaad shaashada saaxiib noqdid biis waa helaysaa waa qasab sidoo kale waxaa kamid ah JPY iyadana shalmaana daraad ayaanu ayadana ka faa'iideysanay oo arbaca ahayd halkaan markii la tagay korkaan ayaanu suuqa ka soo galnay candlekan buyga markuu xirmay cancelka markuu xirmay kiisan kale oo xiga ayaynu ka soo galnay suuqa
so asagana waxaan target gareynayna hoostan hoose in la jabiyo oo candleka buyga afkiisa la yimaado asagana halkaana la yimid so 65 bib ayaan asagana ka qabanay laakiin waxa aragtay wax ka badan inuu bixiyay markaa maalinkaas oo 130 uu bixiyay laakiin anagu markayna hor targetkeena wuxuu ahaa halkan 68daas intaas ayaan uga harnay trade kale asagoo fiican baa still rajo kale ayaa ku jirta oo waxaan sugaynaa asagana in halkan marka again la tago oo confirmation keena kalena aan ka helno inaan mar kale oo leen inaan soo galno asagana insha Allah waxaanu waa maalin jimca gelinkeeda dambe insha Allah isniinta ayaan rajaynaynaa inuu sidaas noqdo midkaan haddaba haddii aad adiguna sidoo kale isbuucan aad trade samaysay iyo maxaa la yiraahdaa lacagaha ka faa'iideysatay inagula wadaag qaybta commentiga faallada hoose adigoo trade ka bagaciisa soo qoraya sidoo kale linkiga aan ku soo dhigi doono barta ugu horeysa Telegram-ka kugu biin gareyn doono igala soo xiriir sadabkaada waa igu soo diri kartaa si aan kaaga saacideeyo wixii ka khaldoomay iyo waxyaabihii aad ugu baahan tahay inaad ka sii ogaato information dheeraada. Assalamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.